بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دمان إذا ماذا BNBF بنتلان مرت شرف كسوق غيب قال هالكن وكيل هذا UAE هالكن فديه لما أنت والسلامية ترانك بعدي وحمانت مالين وين أي نوتهاي ama ay u tahayba ciidanka BNBF ciidankaasoo maanta 8 sano jirsaday oo la gaaray sanad guuradii 8aad maalintii la aasaasay oo ku beegnayd 4 bishii Oktoobar 2010 aad iyo aad ayaanu ugu hambalyeynaa dhammaan ciidamada BNBF ee ku sugan goobaha kala gedisan Puntland sida laga soo bilaabo Garcad Ayl Xaafuun Beergal isku shuban Qandala Boosaaso Af Urur Galgala Suure Garowe waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa kale Allah nagu gaarsiiyo nabadgelyo iyo ammaano iyo horumar intaba waxaan isleeyahay ciidankan runtii in uu gaaray ujeedooyinkii loo abuuray laga soo bilaabo xilligii la asaasay ciidanka waxa loo asaasay baahi markaa jirtay baahida waxay ahayd iyadoo Puntland ay harakeeyeen ama dhibaateeyeen burcadbadeedii xilligaa jirtay baahida ayuu ku yimid waxaan isleeyahay way soo afjareen wayna ku guuleysteen burcadbadeedii dalkeena ceebta u soo hoysay waxaan leeyahay guuleysta ciidanku wuxuu ka howlgalaa ama uu qabtaa maandeedyo kala gedisan sida la dagaalanka burcadbadeeda la dagaalanka hubka sharci darrada la dagaalanka taariikhta la dagaalanka argagixisada nooc kasta oo ay tahay iyo dhammaan amniga guud ee Puntland waxaan isleeyahay inuu ciidankani uu yahay ciidanka ugu ballaaran ee Puntland maanta ka jira hadday tahay tiro iyo tayaba waxayna ka howlgalaan degmo kasta oo gobolka ku taala Puntland intooda badan ammaankana way ka qayb qaataan runtii waxaan isleeyahay haddii aynan jiri lahayn taakulaynta ay mar walba iyo tababarada ay la garab taagan yihiin dowladda Imaaraadka Carabtu maanay suura galeen wax badan oo maanta noo qabsoomay waan u mahad celinaynaa waxaan leenahay waad mahadsantihiin waxaan leenahay waajibaadkii walaalnimo waad gudateen waxaan leenahay waliba intaa hanaga tagina waxbaa noo dhiman ciidanka waxaan farayaa maanta laga bilaabo haddii hawshii ladiin idmaday weli way taagan tahay argagixisada ayaa ugu horeysa maanta laynka kuwaad ku jirta iyada waynaynu la dagaalanaa waa inaynu la dagaalanaa meelna sidii waajibaadyadii hore aynu meel u saaray waa inaan u saaraa wey ilaahay idinkiisaan uga baranayna waa saaraynaa waxaan idin leeyahay waajibaadkiina u guta sida uu sharcigu ogol yahay ma aha laalaab ma aha dhibaatayn kale shacabka ma aha xadgudub shuruucda dalka lagu xadgudbo ma aha in lagu xadgudbo xuquuqda aadanaha waa inaynu gudnaa waajibaadkeena inaga oo raacayna ama ku dul soconnaa shuruucda dalka iyo qaanuunka caalamiga taasaa meel lagu gaari karaa waxaan runtii u mahad celinayaa madaxweynaha Puntland oo isagu intii uu xilka hayay runtii si fiican u garab istaagay ciidanka badda iyo xiriirka wanaagsan uu la leeyahay ama uu
la leeyahay dowladda imaaraadka carabta kaasoo noo suurto geliyey oo aan filayaba cid noo qaban lahayd inaanay jirinba waxa ay noo qabteen runtii waa wax lagu faano wey waa wax ammaanka puntland la taaban karo oo ay muuqato waxa ay qabteen annaguna waxaa laynaga doonayaa sida laynoo maalgeliyey sida laynoo tababaray sida laynoo yani habaynayo in annaguna aynu la nimaadno wax lagu farxo oo ah inaynu ammaankii aynu improvement fiican aynu ka gaarno taas ayaa qof walba ku dhiiran karaya waxtarkeenna caawinteenna garab istaageenna ee aynaan noqonin daasad biyo lagu shubay oo dabada ka duleesha ma rajaynaya taasna waxaan mar labaad u hambalyeynayaa dhammaan shacabka reer puntland kan soomaaliyeed dhammaan ciidanka badda puntland meel kasta oo ay maanta ku sugan yihiin xaasaskooda qaraabadooda saaxiibadooda anoo ugu hambalyeynaya guusha ay gaareen sanad guuradii 8aad وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته